بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ولا لها أما حد أما قدال نقد داوان دونا وحنا قلت إذا وقت دم داوان دونا وقيبتي اللباد السؤالها ولا له نقص ودرين فيسبوك قيبتي روحي هي تضبية توان سؤالود تنو حرجين يا إني تضبية توان كلا نقطة su-aasha koobaad qofkana weydiinayay wuxuu leeyahay wiilaan saaxiibba nahay ayaa guursaday gabadha uu guursaday markii hore 20 garaam oo dahabay ku heshiiyeen meherkeedii inuu noqdo markii fagaarihii meherka uu tegey bay isagii la yaraatay oo 60 buu ka dhigay sidii baa lagu meheriyey gabadhaasi maxay yeelanaysaa ma 20 ka leedahay mise 60 ka leedahay kadib hadday iskala tageen oo isku qabteen arrintii muxuu siinayaa oo ay ku leedahay su-aasha jawaabteedu waxaa weeye kii lagu meheriyey bay leedahay ama ha la ekaado ama ha ka yaraado ama ha ka badnaado kay hore ugu heshiiyeen haddii waxa hore dhacay heshiis keliya uu ahaa oosan meher iyo caqdi nikaax ahayn haddii marka hore hoos ay isu soo nikaaxsadaan nikaax shuruudii leh oo meher la magacaabo kaasaa asal noqonaya laakiin af heshiisuun hadduu ahaa waxa caqdiga iyo nikaaxu ku dhacay shaahidkiiyo markhaatiguna goobjoogga ka ahaayeen oo hadda tusaalahan su-aashna la weydiiyey 60 garaama ayay gabadhu leedahay hadday wada joogaan iyo haddii ay kala tagaanba kala tagoodaasi markay reer noqdeen kadib hadday kala tageenna way wada leedahay hadday iyagoon isreeraysanin weli kala tageenna nuskeed bay leedahay wabilaahi towfiiq su-aasha labaad maanta waxaana su-aasha 19aad qofkeena isweydiinayaa wuxuu leeyahay salaada sunnada ah ee faralka ka dambeeya waa imisa sideese uga dambeeyaan duhurka 4 baa ka dambaysa maqribkana 2 ka dambaysa cishahana 2 ka dambaysa waa 8 weeye salaadaha sunankaa ee raatibada la yidhaahdo ee faradka ka dambeeya guud ahaan duhurku waa 4 ka dambaysa casarka iyo subaxu wax ka dambeeya ma leh maqribkana waa 2 wax ka dambeeya cishahana wax ka dambeeya 2 way saa darteed 8 bay noqonayaan xadda ugu kaamilsan salaadaha faradka ka dambeeya ee sunnada ee ku xiran iyadoo rawaatibta la yidhaahdo saa'ilka xigay su-aasha 20aad guud ahaan ahna midda saddexaad qaybtan wuxuuna weydiinayaa wuxuu waqtiga ugu fiican salaatu duxada waana imisa rakco waqtiga ugu fiicani waa qoraxdu bannaanka markay xogay u soo baxdo dhulka iyo ciidana kululaata way nabiga nacasam xadiidkiisi waa kii ahaa salaatu alawaabiina xiina tarmidu lfisaal salaatu alawaabiin xiina tarmidu lfisaal salaada dadka alla u noqodka badan waa markay nirgaha ay ku cagahooda ku kululaadaan ama ku cagagubyoodaan dhulka ay marayaan dabcan nirgaha iyo geela ilmaha yaryarkii cagtiisu ma adkaanin dhulkoo soo kululaada markay ku istaagto way kululaanaysaa maanaa ciiddii dhulkaa kululaatay baa laga hadlayaa waa waqtiga ugu fiican su-aashuma qaybta hore qaybta labaad ragcaduhu waa imisa 2 ugu yar 8na waa ugu badan yihiin 8na nabigu yowma fatxi markuu xilliga duxada tukaday xadiidkii umuhaani 2 ragcadoodna saxaabada abu hureyriya waa kii u dardaarmee yidhi qofka ha ka tegin wa ragcatay duxa markuu fadligooda ka hadlayana waa kii lahaa 360 xubnood waagii baryaba mid walba sadaqaa laga rabaa adkaar iyo sadaqaad kale markuu sheegay wuxuu yidhi intaasoo dhan waxaa kaga filan 2 ragcadood oo waqtu duxa uu rukuucayo su-aasha xigtee saa'ilka afraad anagta 21aad wuxuuna leeyahay maalmaha waxaas ku soo baatay facebooka dumar beej furanaya kana hadlaya diinta maxay diintu ka qabtaa haweenku in meel babliga ay ka hadlaan waxaan qoraal ka aqriyey imaamu nawowi inuu yidhi codka dumarka cawra ma ahan maxaa ka jira arrintaas su-aashu waa 2 qaybood midda guud ee dumarku ma ka hadli karaan meel fagaara ah hadday wax wanaagsan sheegayaan ereygoodana anshax iyo aadaabta ay ilaaliyaan ilaahna subxana wa tacaala markuu dumarka hadalkooda ka hadlaya wuxuu yidhi
falaa takhdacna bilqowli hadalka ha dabcininoo si dad iyo dareen xun kicisa ha u hadlina ha hadlina lama odhan saas darteed bay dumarkuna hadli jireen nabigoo lala jooga su-aalo weydiin jireen sala allahu alayh ali wasalam wixii la weydiiyena ka jawaabayeen in lala hadlana loo ogolaaday saas darteed codka dumarkuna cawro maaha haddii aynan iyadu ka dhigin hadalka imaamu nawowi loo tiiriya waa sax imaamu nawowi waa qabaa sidaas majmuucayna ku taallaa asal ahaan munaasabadeeduna waa masaa'ilka aadaanka iyo salaada qiraa'ada kor loola jahrayo wey haddayna goob iyo wakhti fitan ahayn codkeedu cawro maaha saa'ilka xiga ee 22 anaan filaya ka shanaad inuu yahay wuxuu leeyahay anigoo ardaya waxaan jaamacad isaga bixin jiray lacag nin adeerkay ah oo meel isbaaro kontarool u taallo oo isbaaro dhigtay lacaguu ii soo diray baan iskaga bixin jiray aqoontaas haddaan wax ku shaqaysta ma xaaraanba dabcan isbaarada waxaan u garanayaa dad meel iska dhigtay oo qori haysta oo dad iyo gaadiid waxay arkaan joojinaya oo baadaya dabcan baaddaa dadka laga qaaday waa xaaraam laakiin hadda xaaraan qofkii laga qaaday hadda la garanayo oo la simayn kara ma aha haddii aadan ogeyn inay xaaraan tahay aadan ogeyn wax dembi ah kuma saarna haddii aad ogeed xaaraan inay tahay cunitaankeedii iyo isticmaalkeedii baad ku dembaabtay waana deyn kugu maqano dadkii lahaa inaad u sadaqaysa lagaa doonayo si aan aakhare ajirkaaga iyo camalkaaga looga goosanin haddii aad ogeed xaaraan inay tahay dadna laga soo xoogay wixii kale adigu barato haddaad shaqo nadiif iyo xalaal kaga shaqayso xooggaaga iyo dhididkaagaad maalaysaaye xaaraan kuguma aha saa'ilka xiga wuxuu ina leeyahay 23 si guud ahaaneed markaynu eegno su-aasha 23 lacagaan ka sameeyey shay aan bannaanayn sida sigaarka iyo timaha dumarka haddii aan masjid ku dhiso wax ajira ma ka helayaa haddii aan ka hadallo lacag aan bannaanayn ama qaad laga sameeyey ama sigaar laga sameeyey ama ganacsi kale oo khaldan oo ribo iyo laga sameeyey masjidkaad ku dhisto ka lacag ahaanaad masjid ku dhistay ajir uma lihid waayo xoolo aad leedahoo xalaal ahaa maaha ajir baad ka heshayna waa lagaa aqbalay bay ka dhigantahay xadiidkiina waa kii ah in allaha tacaala tayibun walaa yaqbalu ilaa tayiban marka nabigana alai slam xaaraanta sadaqa inaan la aqbalin waa kii yidhi laa yaqbalu allahu salaatan bigayri tahuur walaa sadaqatan salaad daharola-aan lama aqbalo sadaqana lagama aqbalo min haluul wax musuq maasuq iyo xaaraana oo wax lasoo khiyaamaya kuma asaxdo sax masaajidkii laga dhisay waa lagu tukan karaa adiga hal wax baa laga yaabaa ajir inaad ka hesho haddii aad xoolihii inaad ka xalaal noqoto doonaysay masjidkuna masaalixda guud ee lagu bixin karaa cala saxiixi uu yahay masaalix guud baa xoolaha lagu bixinayaa marka la yidhaahdo jidka iyo masjidkuba labaduba waa masaalix guud xaraamna kuma aha wali culimmada qaarkood ay yar dhibsadeen towbada aad ka towbad keenayso inaad isdhaafiso ee dariiqii mudnaa ku bixisa aad samaynayso ka towba ahaan insha allahu ajir baad ka heli laakiin kamaal iyo sadaqa ahaan ajir masaajid dhisid malihide ajru tawba baad leedahay insha allahu tacala haddaad niyada wanaajiso su-aasha 24aad qofkani wuxuu leeyahay taxiyaadka marka la aqrinayo in fata la dhaqdhaqaajiyo ma bannaan tahay dabcan masale khilaaf badani ka jira weeye ku salaysan xadiidka farta dhaqdhaqaajinteeda sheegayaay ma sugan yahay oo ma asaxay mise ma sugna fara'aytu rasul sal slm yadcuu yuxarikuhaa yadcuu bihaa yuxarikuhaa ku ducaysanaya oo dhaqdhaqaajinaya ereygaa yuxarikuhaa wuu soo arooray xadiidkana waa ku jiraa riwaayada zaa'idata bni qudaama ruwaadda hiqaadkee la wariyay intooda kale ma sheegin saa darteed culimmadu labay u qaybsan yihiin qolale riwaayadan ma asixin oo baabu shuduud weeye kuwaasaana aniga ila raajixsan ila saxsan inayna sugnayn
iyo culummada way sugan tahay oo baabka ziyaadaatu thiqaad la yidhaahda weeye. dabcan culummada inay sugan tahay qaba inay sharciga tahay oo ay bannaan tahay weliba ajir laga heli bay qabaan. kuwa kalena waxay qabaan inaan ajir laga helaynin, laakiin salaad baa jabi midna maaha. salaadda jabitaankeedu farta dhaqdhaqaaqeedu xubin kaamila maaha, ilaa cumaacumta ay intaasoo jeer la dhaqaaqda weeye masalatulbutlaan ee karaahiye unbay gaadhsiinayaan. mar hadday dhahaan ma sugna daliilkeedu, waa laga fiican yahay salaadda in lagu sameeyay ka dhigan tahay. masaa'ilka 25aad guud ahaan wuxuu leeyahay waa qof jooga Jabuuti. wuxuu leeyahay meesha iyadan bidco badan baa ka jirta oy dadku aaminsan yihiin. maalin sanadka ka midoo la ducaysta ha noqoto, mawlid iyo micraaj ha noqoto, magaalada oo la fasaxa marka munaasabadahaasi la gaaro. laakiin taasoo dhan isma bidca mise maaha? su-aashiisu maaha. su-aashiisu wuxuu weydiinayaa dadkii haddii la fasaxo inaanan soo shaqo tegin oo gurigii iska joogo iyadoo mawlid iyo micraaj iyo loo fasaxay ma dembi baa? jawaabtu waa maya. waayo meel shaqada tegitaankeedu waajibna ma ahayn, sunnana ma ahayn sida asalka ah. haddii fasax uu qofku helo ama si gaar ah loo siiyo ama si guud ha loo bixiyo isaguusan camal bidca ka qayb qaadan, inuu fasaxaa qaato oo uusan imanin ee wixii kale dana qabsadaay dembina maaha, bidcana maaha. saa'ilka xiga su-aasha 26aad wuxuu ina weydiinayaa cunug baa ii dhashay, katib timihii baan ka xiiray, waxaa la yidhi waa la miisaamaa, lacagna waa la bixinayaa intii ay miisaan timuhu noqdaan. ee arrintaa iga jaahil bixi. masalada xadiidka ah timaha in la miisaamo waa xadiid culammada qaarkood xasan ay ka dhigeen. taasina waxaa ka dhalanaya in ay wanaagsan tahay oy sunno tahay in sadaqadaa laga bixiyo. dabcan dadkaa mudanee la siiyeyna dee ducada iyo qalbi wanaagga ka farxintooda ay ilmaha in wax tartaa laga yaabaa. culimmadaana sixin in badan oo ka mid ahna oo xadiidka uma sugna tirina fadaa'ilul acmaal weeye oo daciifaba ahaadee waxaan waa baabul fadaa'il iyo sunan ee waa loo deliishan karaa bay qabaan. saa darteed way wanaagsan tahay laba gooraba in ilmihii sadaqada aad ka bixiso. su-aasha 27aad saa'ilku waxa uu ina leeyahay ahna su-aasha 10aad baan filayaa xalaqadan iyo qaybtan labaad ee su-aalahan. marka uu tujinaya imaam salaada la jahraya bimacnaa kor u akhriyahaya sida maqribka, cishaha iyo salaada subax, ma inaa qur-aan akhriyo sida faatixada oo kale ayaa la iga rabaa buu ina weydiinayaa, mise inaan imaamka qiraa'adiisa dhegaysto markuu qur-aanka akhrinayo? labadaba way sugan yihiin. ilaahay inuu yidhi waidaa quri'a alqur'aanu faastamicuu lahu wa ansituu lacallakum turxamuun. qur-aanka haddii la akhriyo aamusa oo dhegaysta. ila ilaahay naxariistaa laga yaabaa aamus oo dhegayso mar haddii lagu yidhi, weliba dhegaysi dheg raarici ah baa lagaa doonayaa. faatixada mar walba in la akhriyana nabigeennaa sheegay sal slam xadiidkii cubaadata bni saamit laa salaata ilaa bifaatixati alkitaabi buu yidhi. faatixada haddaan la akhriyin salaad ma asaxayso. kadib culummadu sida la isu waafajinayo way ku kala aragti duwan yihiin. sida aniga saxda ilaah waidaa quri'a alqur'aanu faastamicuu lahu wa ansituu cumuumkeedaa guud oo salaad gudaheeda iyo bannaankeedba ah waxaa laga soo reebayaa faatixada. saa darteed faatixada waad aqrinaysaa, laakiin wax kala aqrin maysid inta imaamku qiraa'ada kor ula jahrayo. inta imaamku qiraa'ada kor ula jahrayo wax kale ma aqriyaysid. saa'ilka kale ee su-aasha 28aad ahna su-aasha 11aad ee xalqadda labaad wuxuu leeyahy qofkani waxaanay hooyo lagu soo qalay ilmo muddo dhan 2 bilood dhiig baa iga socda. markaan dhakhaatiirta la xiriirayna waxay ii sheegeen inay uga soconaya dhiigga ilaa 3 bilood. su-aashaydu waa salaaddii sideen ka yeelaa?
ma dhiigga dhalmada ayuu noqonayaa mise waan tukadaa? mar haddee 2 bilood u dhammaatay way qabaysan, dhiiggaana way iska daahirin, dhalmadiina way dhammaatay. kadib salaadaheeda ay tukan, dhiiggaa haddii uu ka yimaado meeshii uu gaarana way ka dhaqi jirkeeda iyo dharkeeda iyo gogashaba. salaaddii uu ka yimaado horteedna way u weysaysan. damu fasaadin iyo damu istixaadatin, dhiig furankii oo kaleetay ula dhaqmi. salaadaha way tukan, way soomi, ninkeeda xiriir way samayn karaan marka ay daahirsatay ay qabaysata kadibna way iska dhaqaysaa, waa nijaaso. haddii uu ka yimaadana weysaduu ka jabinayaa. su-aasha 29aad waana midda 12aad xalqadeenna wuxuu leeyahay in wiil iyo gabar la isugu diida qabiil dartiisa ma bannaan tahay? waalidkase hadday kugu dhahaan qof aan reerka ahayn keenso, ama haddaad qof aan reerka ahayn keento waan ku habaaraynaa, habaarkaas ma i qabanayaa? qof aad guur ku ballanteen oo aad wax waliba u samaysay hadduu kaaga tago sabab aan macquul ahayn ma dembaabayaa qofka ka baxay ballanta? 3 su-aaloodoo isxambaarsan weeye. su-aasha qofka haddii uu yahay qof wanaagsan diintiisa iyo dabeecaddiisa, dhinaca ragga markuu yahayna xilka iyo mas-uuliyadda gabadha iyo reerkuu guursanaya qaadi kara, in qabyaalad loogu diidaayo asal ahaan ma bannaana. waa si guud markaan u hadlayno. si hoosoo gaara marka loo soo galo ee dhacdo gaara taagan tahay, duruuf qiimaynteeda mudan weeyo way dhici kartaa dhib dhex yaalla labada reer darteed oo saamayn karaya ama saamayntiisa leh in uu cudurdaar u yeesho inay intay duruuftaa jirta uu diido, way dhici kartaa. asal ahaan qabyaalad la ysuguma diidee, man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuh, qofkaa diintiisa iyo dabeecaddiisa idin cajabisa eed ka raalli noqotaan ee wanaagsan guursada baa layidhi, fasawijuuhu u guuriya. dumarkana fadfar bidaati diini waalkhuluq baa layidhi, diin iyo dabeecad wanaagsan ha lagu doorto labadaba. xadiidkii faatima binti qaysna wuxuu ku sheegay nabigu markay mucaawiya soo dooneen nabigana sal ly slam wuxuu sheegay amaa mucaawiyatu fa suclukun laa maala lah, waxba ma hayo. saa darteed waa loogu diidi karaa gabadha haddii uu xagga raggaya. qaybta labaad ee su-aasha, waalidku hadday dhahaan waan ku habaaraynaa haddaad cidaan reerka hayn keento, waalidku daacada way kugu leeyihiin. qof wanaagsan sharci ahaan inay kaa xaaraantinimeeyaan maaha, laakiin dhinac kale waxaad ka eegtaa adigoo ninkii haddaad tahay reer qaba, waalidku xaaska fur hadday ku dhahaan xaq bay u yeelanayaan, adninaada tacdaa lagugu yeelanayaa. waalidkaadu isdhasheenoo idan kala gu'i karin. qof isagoo kale uu badan yaho rag ama dumarahi in waalidka loo xumeeya loona gooyo meesha kuma jirto. su-aasha qaybta ugu dambaysa isla su-aashaasi qofku wuxuu leeyahay qofaad ballanteen hadduu sabab la'aan kaa tago ma dembaabayaa? ballantu haddaan sabab loo jebiyey jirin ma bannaana in la jebiyo. haddii qofkii sabab ku kallifaysa jirtana qasab maaha sababtii inuu sheego. qofka ballantii ma wadi kara inuu yidhaahdo u sheego, bay u baahan tahay. haddii uu u sheego sababna ay jirta dembaabi maayo, laakiin qofka ballanta looga tegayahay isaga qofka inuu dembaabay iyo inuusan dembaabin waxba kama khuseeyo. inuu dembaabay iyo inuusan dembaabin isagii rabbi bay u taallaa. haddiise uu kuu sheegoo yidhi hawshii aniga ma wadi karo, haddiiba intaa ballanta ah aad wada heshiin weydeen oo iswadi weydeen, haddaad reer noqotaan wakhti dheer saad isu wadaysaan, macnaheedu halka waxaa la gaaray inaydan sii wada socon karin. dhibkun baa ka sii badanaya intii hore. su-aasha 30aad wuxuu leeyahay qof dumar ah oo dhowr carruura dhalmo kula soo hagaagtay soonka haddana aan awoodi karin maxay samaynaysaa? dabcan hadda ma awoodi karto. su-aal baa ka imanoo ma duruuf go-an oo kooban oo hadda haysata oo sida caadiga la yaqaan berri laga baxayaa, mise xaalad waxay gaartay hadda wixii ka dambeeya aynan sinaba u soomi karin?
hadday gaarto ama qofku gaadho xilli uusan sinaba dib dambe uu soomi karin uu waayeelay uu xanuunsaday xanuunadan joogtada en lala soomi karin baa qabtay qofkaasi ama uur ha kaga tago ama umul ha kaga tago ama caado bilaha ku dhaafo ama kas ha ku dhaafee fidyuu bixinayaa maalintiiba miskiin buu quudinayaa hadduu qofkii awoodo xaalad buu yar xanuunsan yahay hadda laakiin markuu roonaado sidii roonaan buu inuu roonaado caafimaaduu rajo ka qabaa duruuftan inay ka dhammaatuu rajo ka qabaa wuu sugayaa dib buuna u qadayn qalaha uu qadaynayana in yar yar iyo hal iyo laba iyo saddex buu u qadaynayaa su-aasha 32 saailkana weydiinaya wuxuu leeyahay waxaan ahay arday waxaan wax ka bartaa waddamada eshiya indhahaygu waxay qabtaan mar waliba dumar qaawan ee diinta maxay ka qabtaa dabcan arday kuma xirna masaladan marka labaadna kuma xirna eshiya qof kastoo waddan gaala ah jooga ama waddan muslimoo anshax iyo asturaadda aanay ka jirin bay mushkiladdani haysataa ardaygaas ay u haysato kuwa isbitaallada joogay haysataa isbitaalka markaad tagto receptionka laga bilaabo kuwa shaqaalaha iyo kuwa bukaanka wadaba dee dad badanoo asturayn baa kaa hor imanaya suuqa markaa usoo dhaadhacda waa la mid dukaamo markaa wax ka gadanaysa waa la mid markaad xafiisyo kala timaadda waa la mid kuma xidhnaan rabaa inaan idhaahdo in uu arday yahay qofkan ama eshiya joogo waxaan saamayn la in waddankii waddan gaala yahay ama waddan muslimoon dadku dumarku asturayn u yahay xaaladdaa markay noqoto maa tacumu bihi lbalwaa wey intii la kari karo baa la iska ilaalin wixii aan la kari karin indhaha ku dhacayaan dembi ma aha ama hal mar ha noqoto ama mar labaad iyo saddex ha noqoto jidkaad socotaa jidka inaad iska fiirisa waad u bannaan tahay hortaada dumar qaawan baa sii socda kuwana way soo socdaan kuwana midig bay kaa yihiin gaariga inaad iska fiirisaad u baahan tahay baskaad soo raacday hortaaday fadhiyaan oo gadaashaaday fadhiyaan meel makhaayad ba adoo gaajaysan wax ka cuntiri miiska kaa horeeya kaa midiga iyo kaa dambeeyay fadhiyaan kuwii ku adeegayeyba iyagii ah inaad wax ka dalbataad u baahan tahay dukaankaad wax ka gadanaysay bay fadhidaa isbitaalkii aad lahayd dad baan wadaa bukan bay fadhiyaan miiska kaa soo horjeeday fadhiyaan mar hadday sidaas tahay laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha naf waxaynan ilaahay ma saaro wixii awooddaada ishaada ku dhac ka baxsanna dembi maaha adiguna dadaalo indhahaaga inaad ka laabto waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim indhahooda inay laabaan noqo taasuuna nabigaanu tilmaamay sal slam markuu cali ku laha yaa caliyu laa tutbici nadrata nadra fa inamaa laka aluulaa walaysa laka athaaniya aragtida ishu ku dhacday ee hore awooddaada wax ka baxsan weeye saadaad qof u soo jalleecday ishaadu ku dhacdee dumar qaawan oo kugu noqday mar labaad ha ku celin baa lihi tii hore awooddaadaay ka baxsan tahay wixii awoodda ka baxsan marka laysuma haysto su-aasha 33 laba keliyana ay ka dambeeyaan xalqadeenna maanta wuxuu iswana weydiinayaa in afarta madhab mid ka mida la haysto ma qasab bay igu tahay jawaabtu waxaan dhihi karaa haa oo maya hadda adigu leedahay aqoon aad wixii masaladii iyo daliilka sharciga ku ogaan karto asalku daliilka sharcigaad ogaan karto inaad raacda weeye waa marka koobaad marka labaad haddii aad haysatoy kula joogaan ay kuu fududahay dad culimo ah oo waxaad u baahataba aad weydiiso oo kaaga jawaaba diin iyo cilmina aad ku kalsoon tahayna iyagaasaad madhabu man yuftiihi waa ninka caamadahe ciddii u fatwootay ahlulcilmi ee lagu kalsoon yahay madhabkiisaa madhab u ah labadaa midna haddaynan ahayn ama adigu dad aad waxbarayso ama aad qaaditoo dad kale xukumaysa ijtihaadkeedana aadan gaarin asalku hal madhab inaad raacda weeye si looga fogaado xeeladaysi iyo xogay luuqluuq raadinoo kolba madhab loo boodo kolba kanaa ii sahlan iyo kolba kanaa ii fudud inaad u boodboodood hawa raacdo waxaa ka fiican hal madhab inaad raacdo keliya wixii daliil khilaafeed ogaatana aad ka leexato saa'ilka ama su-aasha 34 aanan filaya ta 16 xalqadeennan inay tahay saa'ilku wuxuu leeyahay maxay diinta ka qabtaa
inaan xiriir la yeesho gabdho badan waxaan ahay nin dhallinyaro ah maxaase igula talin lahayd dabcan su-aashani rag keliya meehee dumarka laftoodu waa su-aalay weydiin karaan inay dhowr nin la sheekaysato oy guur kala hadasho diintu maxay ka qabtaa labaduba way bannaan tahay haddii uu qofku si sax iyo daacad iyo guurdoon yahay mid waxay kaga hadlaan culimmadeennu gabadha intaasoo nin ay aadayaan haddii siismo reerkoodii la weydiistay oo gaadhay gabadhiina ninkii la siiyey aynan imanin inay bannaan tahay alkhidbatu cala alkhidba in qofku gabadhii uu u doonanay laga daba doono markay ka hadlayaan khidbadu waa in dadkeedii intuu weydiisto iyaguna aqbalaan halkaa hadday gaarto niman kale lama ogola inta kale dee wax rasmi ah ma jiree nin iyo laba iyo saddexba arrin guur gabadhu way kala hadli kartaayo faatima binti qays markay ciddada ku jirtee nabigu ha ii timaada ii ima uu yidhi arrintaada anoon kula ogeyn ha guursanni uu yidhi markay ciddada ka baxday u timid ragay mucaawiye iyo nin kale ka mid yihiin baa labadaa nin ay ka sheegtay baa ii yimid oo gurigala hadlay bay tiri marka hal nin ka badan bay dadkii guur kala hadlay nin baa maray la hadlay ilama hadli kartid ma ahayn saas darteed nin iyo ka badanba gabadhu guri way kala hadli kartaa haddaynan doonis gaarin ninkana hal qof oo dumar iyo ka badanba guri waa kala hadli karaa waayo hadalkan la hadlayo waxna waa laga wada hadlayaa waana la isbaarayaa qof kale waa ku maqan yahay xog iyo war kalena bannaanku ka raadinayaa inuuba cajabin waayaa laga yaabaayo qofkan laakiin amaa taladu waxaan ku talin lahaa qofka dumarka gabadha intaadan la sheekaysanin xogta bannaankaa soo xuuraanoo soo ururi intaad sheekadii fogaataan meel berri xog dambe oo gadaal kaaga soo baxday inay ku beddeshaay adna culays baad geliyo in ceebna laguu soo sheego qalbigaagiina meeshii ku tacalluqaa laga yaabaa kadib aad noqota ninkii nebigu u yimid ee yidhi rasuulka ilahi inna imra'atii laa taruddu yadda laamisin heyba wax iskama dhaxda buu yidhi markaasuu wuxu yidhi talliqaa iska fur marka wuxuu yidhi akhaafu an tatbacaha nafsi aad baan u jecla oo qalbigu inu iga raacaan ka yaabi iskaga haysuu yidhi saa marka qalbigaagiina inuu raaco ceebaadan ku qaadan karinna soo baxda way dhici kartaa marka maxaa lagaa doonayaa waxaa fiican marka hore haddii gabadha markaad kor ka aragta muuqaalkeedu ku cajabiyo ku qanciyo intaadan iyada xiriir la furin horta qoyskeeda iyo iyada aqoonteeda iyo dabeecaddeeda iyo diinteeda iyo dadka yaqaana iyo soo warayso haddii intaa ay ku anfacdo mise hadday ku anfici weyday intaa hadday ku anfici weyday iska badaada iyana ha lugoyn adna has lugoyn hadday intaa ku anfacdo markaa kadib iyada hadalkii oo laba qaybooda iyada lafteeda inaad qiimaynayso iyo mawaaqiftaad ka wada hadlaysaan qofkaad rabtay inay tahay iyada lafteeduna inay ku aqbalayso ay ku yeelayso markaa kadib buu hadalku ku fiican yahay talada hadalkuna wuxuu ku fiican yahay inaanu badan oosan dheeraan hadal badanna haan ma buuxsho waxa hubaalkaana jacaylku ka hasaawaha bannaanka amaaha jacaylka rasmiga bannaanka abbaayada lagu hayo rasmi ma aha weli marka reer la noqdo ee dhaqan la galo ee la isdabeecad iyo shakhsiyad arko markaasa ama si rasmi a la isu jeclaadaa ama la kala yaacaa saa darteed waxaadna ku garan laba aan weligood wax badan sheekaysan oo reerkooda si fiican u dhaqmaad arki os jecel laba sanado soo wada socday oo usbuuc iyo bil ku kala boodayna waad arki mas'aladu haddaba marka horena okay malaa'ig baa la ismoodaa marka dambena tii runtahayd baa la isula yimaadaa wabilahi towfiiq su-aasha ugu dambaysa ee 35aad kolba haddii ragga saaxiibada la jooga waxay leeyihin tu ka dambaysaan haynaa wixii anigii soo gaaray warqadaha hor yaalun baan ka hadlayaa su-aasha 35aad dhinacna 17 xalqadan labaad anigoo salaad ku jiro buu leeyahay qofkani haddaan hindhiso alxamdulilaahi ma oran karaa qofka kale u garab tukanayana may ajiibi karaa yacni yarxamuka allaahu may dhihi karaa
qaybta hore haa, qaybta dambe maya. adigu alxamdulilah ma dhihi kartaa haa, xamdiga ilahi waa dikri ilahi, faatixadiisa alxamdulilah kama bilaabato. salaaduna litahliili watakbiiri wataxmiidi waay. qofka kugu xigan ba kudhihi yarxamuka allah maya, waayo isagoo aduu kula hadlaya yarxamuka, adiga allah kuu naxariisto. laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaasi, dadka in lala hadlood qof la hadasho la khitaabto kale uma suubata salaada. alxamdu lilah waad dhihi kartaa, yarxamuka allahu isago kuma dhihi karo. hadduu khaldamoo ku dhaha yahdiikum allahu hadna ma dhihi kartid, waa idinkaa wada hadlaye alxamdu lilahina ilah baad u mahad celinaysa. intaasi waa xalqadii labaad 17 kale ee su-aalood. su-aasha dhiman ayaad sheegaysaan maxay tahay? alxamdulilah. su-aashani waxaa la leeyahay qof dumarahoo ilmo in lagu beero u baahatay, sababtoo ah xayawaanaadkeedan iyada xuntay ilmuhu ka abuurmaan baa daciifa. 2 khiyaar baa la siiyey, inteeda bannaanka lagu beero kharash badana, iyo gabadh walaasheeda in looga soo qaado oo waa la qabaa baa layidhi gabadhaas. tan hore way bannaan tahay, ta dambana waa ma bannaano, xaaraan wey. teeda haddii la beerayo way bannaan tahay, bannaanka lagu soo beero, markay soo yar xoogaysato dib minkeeda loogu shubo. laakiin haddii gabadha kale laga soo qaado, su-aal baa imanaysa, ilmahan yaa dhalay? calooshuu ku jiray ma meel la kiraystayba? iyadu mahooyay u tahay mise habaryar bay u tahay? intaa waxaa ka daran xunta walaasheed iyo biyaha ninkeeda maxay isu xalaaleeyeen inay isku darmadaan? xunta walaasheed ma walaasheed buu qabaa? xuntii walaasheed iyo biyaha ninkeedu inay isku darmadaan maxaa baneeyey? caqdi nikaaxuu baneeyey ma jiro. saas darteed in walaasheed looga soo qaado ama ha la qaba ama yaan la qabine ma bannaano. hadhowna waxaa imanaya khilaafka fiqigii ah, hooyadu mata ukunta iska leh baa hooye ah, tanna waxay ahayd meel kira ahaan iyo loo degan yahay, mise tan caloosheeda uu ku dhashay ku xambaartay baa hooye ah, ta kalena mutabarico weeye, habal la dambaaboo xaaraan ha noqotee. kadib waxaa imani haddii tiibaa hooye ah la yidhaahdo, ilmahan ma xalaal ba mise waa wacal? ilaa ninkan biyihiisi iyo gabadha xunteeda isuma bannaana in laysku daro. haddii la yidhaahdo tii laga soo qaaday hore, qowlka culimmada ay yidhahdaan mucaasiriin fuqahada joogta hadda qaarkood in badanoo ka mid a ay qabaan, ilmihii wacal buu noqonayaa. hooyadani wacal ilma hooye carushku sidee, madhabkaas qowlka marka la qaata noqonaya. marka kuweeda bannaanka loogu barbaariyo, khayr allaha siiye. dee ciddii ahli iyo qaraabiya walaalaha kharashka ka caawin kartana ha ka caawiyaan. wabillahi towfiiq. xalaqadii qaybtii labaad iyo maanta su-aalaha facebook intaasaan kusoo gabagabeynaynaa. intaynu xalqadda saddexaad isaga iman doonno, sidaa iyo nabadgelya. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.